iyadoo maalmihii u dambeeyay guud ahaan caalamka islaamka lagu qabanayay munaasabadaha xuska mawlidka nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee ayaa waxa magaalada Burco gaar ahaan beerta Sheekh Maxamed Rabiic ee xaafadda Balaas lagu qabtay munaasabad weyn oo lagu weyneynayo isla markaasina lagu maamuusayo dhalashada nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee munaasabadan bilan ee boqoran oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha xaafadda Aadan Salebaan iyo sidoo kale culimada xirta Sheekh Maxamed Rabiic garadka iyo waayeelka kala duwan ee xaafadda ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay xuska dhalashada nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee gudoomiyaha xirta Sheekh Salebaan Xaaji Ciise iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka Sheekh Muuse Diiriye Saciid iyo xubno kale oo kamid ah culimada xirta waa farxii islaamka gaalada waa hoogoodii iyo jabkoodii baa soo galay dhalashadii rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam hey ilaahay waxaynu ka baryaynaa oo maxaan idhaahdaa dambi dhaaf iyo ridahiisa aynu ku weydiisan iyo jannadiisa waasaca iyo shafaacada rasuulka hey inuu maxaan idhaahdaa intaba inagu siiyo colaada iyo abaartana ilaahay inaga badbaadiyo fadliga rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam islaamka waa yoom aad iyo aad shacairta islaamka kamid ah oo ugu weyn cindigooda in la weyneeyana ay u tahay shay dhaxalgal ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu ku weydiisanaynaa muraadadeena oosan oo aan macsi lahayn fi aakhiraba dembi dhaaf baynu ilaahay ku weydiisanaynaa waxaa bannaan weliba in sadaqad lagu bixiyo in qur-aanka kariimkaa la akhriyo in nebiga ammaantiisii la akhriyo salawaatullahi caleyhi wasalaam xalay baan halkan imi ilaa maanta inta jira nebigaan ku saliyey weligii kuma saliinba bal iska daa inta jira ku saliyey weligii kuma saliin marka halka waxa iga cadaalaysa in khayrka bartan yaalo khayrka baarbaarayaaba halkan inuu yaalo waxweeyaan halka waxa la isugu yimi in dhalashadii rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam oo maanta Rabiicul Awwal 12keedii ku beegan in la weyneeyo oo sidii hadalka weyneentuna ay ahayd mid ilaahay laga bartay oo malaa'igta laga bartay oo rasuulka laga bartay kaleeyhi salaatu wasalaam maalin xafladan oo kale aanu nimaadno oo ka cuntayno oo ka hadallo horta maanta nooga hora ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in maqaamkeeda weyna ilaahayna sii gaarsiiyo laakiin insha Allah ilaahay waxaan ka baryayaa inuu yaqiinta ina wada gaarsiiyo rumayntana ina wada gaarsiiyo diinteena ina wada fahamsiiyo nabigeena ina fahamsiiyo inuu kii inoo soo diray diinteena soo gaarsiiyay mashaayikh fara badan ayaa nabiga dhalashadiisa weynaysay waxa kamid ah culimadan wahabiyada la yiraahdo Sheekh Ibn Taymiyyah la oran jiray mawlidka nabiga horta mawlidka nabiga waa ijmaac waa la isku waafaqsan yahay dhalashada nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam ila sheekhan culimada ay aad ugu abtirsato oo Shaykhul Islaam ay u yaqaanaan Ibn Taymiyyah la yiraahdo kitaab ayuu kaga hadlay iqtidaa siraad al-mustaqim ayuu kaga hadlay mawlidka nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waxa uu yiri fata'dimul mawlid dhalashada nabiga oo la weyneeyo watikhaaduhu mawsim oo laga dhigto mawsimku waa shay aad u weyn waa xajka oo kala mawsim la yiraahdo la isu yimaado in marsa la isugu yimaado buu yiri watikhaaduhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'd an-nas dadkuna ay qayb kamid ah ay sameeyaan ويكون له أجر عظيم أجر وين أي قفك كهلا يا أبو ابن تيمية الحراني هل كان أينو حفلة كسو معني كل إنه احتفال كالنبي وقبل كي تقدر دقمدي صبرعو اللهم مستعان خاصة طريقة ربيعيات طريقة بيرتا كترسن حافظة السيتي بلاس أينو كل إنه حفلة النبي صلى الله عليه وسلم هل كاس أو حرمها أقوى وين طريقة ربيعيات أو أي معني قبل تقدر كسلسن xaruntaasoo ah marka waxaynu gobolka Togdheer xafladooyin fara badan iyo meelo badan ayaa lagu qabtay halkana macni culimada rabiiciyad ayaa degan halkaasaan lagu qabtay ihtifaalka nabiga iyo dhalashada nabiga sallallahu alayhi wasallam maxamed alayhi salaatu wasalaam oo isniina buu soomi jiray yoomku dhashay wuxuu weynayn jiray yada asbuucle inaku waxaynu weynaynaa sanadle markaasuu wuxuu waa yooma wulidtu fiihi waa maalintii la dhahay ee adduunyadan wujuudkan ilaahay uu keenay oo yooma wulidtu fiihi oo nuzila calayya nabiga calayhi salaatu wasalaam waa maalintii waxyigana lagu soo dejiyey shukrinaq ilaahay aan ugu shukrinaqayo ayaan magaranaysaayay u soomayaa wili ومن علومك علم اللوح والقلم يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي
أمين تذكر جيراني بذي سلامي يا نبي يا إمام الحرمين محمد بلشاوي MMTV برعو.